Somtel Balshakori. بسم الله الرحمن الرحيم maamulka degmada odayaasha iyo salaadiinta dhalinyarada mudanayaasha iyo marwooyinka ka kala socda qaybaha bulshada dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo mar koobaad iyo mar labaadba sida sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan ee aad u soo ajiibteen xafladan lagu daahfurayay barnaamijyadii laga sheekeeyey oo ahaa barnaamijyadii ugu horreeyey ee ay shirkaddu soo bandhigto dahabshiil group ahaan qaybtii hore oo sanadka ama kwartarka koobaad 2021 ay soo bandhigto barnaamijyada hadda la idin soo bandhigay oo aad aragteen mudanayaal iyo marwooyin waa hordhacii ama bilowgii 2021 waxaa soo socda sidii Somtel looga bartay ama dahabshiil group looga bartay inay mar kasta u fikiraan wixii macaamiishoodu ay ku qancayaan oo kula joogayaan macaamiisha ka maqana ay ugu imanayaan marka barnaamijyadan labada hadda la keenay oo dahabshiil group ay si guud u daahfurayso kaabe waa barnaamij sidii laga hadlayba kaabaya qofka bini'aadanka mana aha sida u jeedeen inuu ku eg yahay $1 ilaa $100 wuxuu ku eg yahay credibility-ga qofku uu leeyahay iyo siduu u isticmaalo adeegyada shirkadda hadday ahaan lahayd telefoonka hadalkiisa hadday sidoo kale ahaan lahayd banking systemka ku shubashada lacagta haysashada e-dahabta waxaa laga yaabaa inay jiraan dad eligible u ah inay qaataan $10,000 $5,000 iyo wixii ka badan wuxuu akhriyayaa waa intelligent adeeg ah wuxuu akhriyayaa xiriirka aad la leedahay shirkadda dadna wuxuu ku siinayaa sida aad ugu qalanto buu kugu jawaabayaa haddii aad adeegyada shirkadda dhinac kasta ka taagan tahay biilasha aad ku bixiso biilasha dibadda aad ku dirto lacagaha dibadda kugu soo gaaraan xisaabtaada iyo akoomadaada shirkaddu kulli ku soo wada dhacaan muddada aad shaqada la wadatay shirkadduna ay tahay muddo dheer si freeya buu kugu siinayaa iyadoo xogta qofka bini'aadanka ah ay e-dahabtii ku kaydsan tahay barnaamijkaana waxaa fududaynaya platformka e-dahab laakiin cidda lala macaamilayo oo lacagtaadu ay taalo ama lacagta ku siinayso ku amaahinaysana waa dahabshiil bank marka adeegani wuxuu si guud uga turjumayaa inay daahfurtay dahabshiil group sidoo kale adeega kayd yani Soomaali ahaan marka si kale u turjunto waxa laga yaabaa inay dadku u yaqaanaan hagbad yani waa adiga naftaada hagbad la galay yani hagbad inay 3 qof ama 4 qof ay lacag meel isugu tuuraan ay wada haystaan commitment ay galaan qof kasta uu bil qaato ay wareegtay bay ahaan jirtay laakiin markaan adiga naftaada hagbad la galaya mobilka Somtel adigoo isticmaalaya iyo adeega e-dahab waxa leedahay waxaan u baahanahay inaan naftayda hagbad la galo 1 sano ama waxaan u baahanahay 3 bilood bil kasta waxaan dhiganayaa akoonkayga $300 ama $100 ama $10 mana doonayo inaan arko mana la soo bixi karto 3 bilood markay dhamaato offerkii baa lagu siinayaa lacagtii aad save garaysatay 3 bilood waa inta 6 bilood waa inta sanadka waa inta waa marka waa barnaamij aan ugu talagalay dadka aan bangiga lahayn bangiga gaari karin iyo sidoo kale dadka ay maaragtay u baahan inay save garaystaan laakiin wali bilaabila inay save garaynta ay sameeyaan waxaan rabaa inaan idiin ballan qaado inay adeegyadani yihiin adeegyadii ugu horreeyay oo 2021 waxa soo socda sida marxaati ka tihiin fiberkii boosaaso la keenay garowe jooga gaalkacyana imanaya asbuuca soo socda insha Allah taala sidoo kale waxa jira adeegyo kuwan ka badan oo kulliba ah customer friendly macaamiisha si gaar ah ugu adeegaya oo taabanaya baahida macaamiishooda mar raba inaan hadalka dheerayo dad badan baa iga dambeeya waxaan rabaa inaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo shacabkeeda aan ugu bishaareyno inay nasiib u yeesheen adeegyada quruxda badan in maanta loogu furo magaaladooda in la doorto gaalkacyo ay dahabshiil group gaalkacyo dooratana ma aha wax ay ku timid bariyo waa wax customerka
ama macaamiisha reer gaalkacyood ay naga keensteen weyn inaan u dhaga nugulaano oo ag fariisano xaflada u qabano barnaamijyada waaweyn magaaladooda lagu daafuro waxay ka timi sida ay shirkadda saaxiib u leeyihiin sida ay shirkadda u isticmaalaan anigoo ku hadlaaya magaca dahabshiil group waa idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad adeegyada cusub oo iman doonana waxaan rajaynaynaa in magaalada sidaas oo kale loogu daafuro idinkana waxaan idinka rajaynaynaa dhaga nugulaanshaha iyo ka mid ahaanshaha macaamiisha shirkadda dahabshiil group inaad sii laba jibaartaan insha allahu tacaala waa salaaman assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu